السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo hadahan oo kale idinka imaaday stuudiyihiisa koobaad ee magaalada Hargeysa qodobada ugu doorka roon la warkeen caawana waxa kamid ah wasiirka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay inaan wax khilaafi ka dhex jirin wasaaraddiisa garabka uu hogaamiyo Cali Waran Cadde oo si adag uga soo horjeedsaday wafdi uu hogaaminayay kusimaha xisbiga udub Axmed Yuusuf Yaasiin kaasoo u baxay gobolada bariga ururka haweenka qaranka Soomaaliland ee Now ayaa baaq nabadeed u diray dadka ka soo jeeda deegaanada Buuhoodle iyagoo isla markaana taageeray go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku tagi doono shirka ka dhici doona dalka Ingiriiska ururka faafinta islaamka oo deeq kuraasiyay gaarsiiyay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo safar shaqo dibad ugu maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka Maldives Maxamed Nashiid ayaa maanta si rasmi ah isu casilay kadib markii mudaharaadyo baaxad leh laga soo horjeeday usbuucyadii soo socday kuwaas oo ku dalbanayay dadku inuu iska casilo jagada madaxtooyada madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Hussein Obama ayaa mar labaad si laabaya cunaqabatayntii ay ku hayeen dalka Iran daawadayaal kuwaas waa qodobadii ugu doorka roonaa warkii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dibadiisa imika haatan warkii oo fidsan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta sheegay in aanu wax khilaafi ka dhex jirin wasaaraddiisa faahfaahinta warka waxa inoo hayay wariye Cabdiraxmaan Isbatoore wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdisiciid Faahi ayaa maanta mar uu waramayay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV waxa uu meesha ka saaray khilaaf ay warbaahinta Soomaaliland ay qoraysay inuu ka dhex jiro wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdisiciid Faahi waxa uu sheegay in aan wax khilaafi aanu ka dhaxaynin isaga iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxa kale oo uu tilmaamay in dhawaan uu sameyn doono xul qaran oo u ciyaari doona jamhuuriyadda Soomaaliland dhanka kale waxa uu sheegay in sanadkan 2012 ay u qorsheysan tahay sidii gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ay uga fulin lahayn tartano kala duwan oo ciyaareed isagoo oo sheegay in 3 bilood ee sanadkan ee hore ay qaban doonaan tartanada dugsiyada sare ee kubadda cagta waxa kale oo uu tilmaamay qorshayaal fara badan ay sanadkan u yaalaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo hidaha ee Soomaaliland oo ka hadlaya khilaaf soo kala dhaxgalay wasaaradda ciyaaraha waxa uu sheegay in aan wax khilaaf aan soo dhaxgalin isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri dadku marka waxba la qabanaya la yiraahdo baad maqashaa buuq qof kasto bulshada wax qabanayana macaarid ma waayo dadkana way kala sareeyaan oo numba shaqo gaar ah buu leeyahay anagu bolisiga guud ee wasaaradda aan ku hageynaa leenahay qofna wuxuu jecel yahay inaan waxba qabanin hadii waxa qabanayo inaan waxba qabanin iska fadhiyo jecel yahay dadkina hadda aragto qof marka waxba la qabanaya la yiraahdo qeylinaya oo qofkaasi bulshada sheegi doonto wuxuu yahay anagu laakiin waxaan ku sheegaynaa ciidan saynana ma jirto inamada xiriirada nin walba shaqaan uu koobnahay shaqadiisii buu haystaa anaguna wasaarad baan nahay anagu wax khilaaf anagu cabdi ahaan ninka ogahay ninka meelaha ka qeylqeylaya wax qabadka diidan isaga u taala Soomad garan anu laakiin waxa meelaha waan arkaa dadku wax sheegay laakiin waxba aanu kala socdo laba inaan way jiraan oo walaalahay oo halkan igu yimiday oo iyagu qalad inta la fahamsiiyay qalad inta kale qalad kala booljeesiga siiyay sida ay u sheegayso jirdadu ee gaar warkayo laakiin ninka kubadda cagta xiriirkiisa ay waqtigiisina uu ka dhamaaday xogayiina way istirreen annaguna wada shaqeyn waanu yeelan kar weynay sidaa daraadeed qaran dumisna anaga wada kaalay oo arimo kullida iyo wasiirkii isku dheerinayd moodaba wasaaradda kala asaga mala meel laga soo magacaabay inuu yahay oo aan fahmi waayo ciyaaraha gobolada waanu fashilin lahayn waanu baabiin lahayn wasiirku waa tuug waxa soo midhan musaxafada ku soo qoraa maaha markii ugu horeysay ee warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaaba dhigto in khilaaf soo kala dhaxgalay mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Soomaaliland Abdiraxmaan Ismaan Isbatoore Bulsha TV magaalada Hargeysa
garabka uu hogaamiyo Cali Waran Cade oo si adag uga soo horjeeday wafdi ballaadhan uu hogaaminayo kusimaha gudoomiyaha xisbiga udub Axmed Yuusuf Yaasiin kuwaas oo safar ugu baxay gobolada bariga Soomaaliland waa kan mar kale Cabdiraxmaan Isbatooro inoo sii wada warkaasi garabka uu hogaamiyo Cali Maxamed Waran Cade ayaa maanta shirjaraad ku qabtay xarunta guud ee xisbiga udub ee magaalada Hargeysa waxaana ay dhaleecin kulul u jeediyeen kusimaha gudoomiyaha xisbiga mucaaridka udub Axmed Yuusuf Yaasiin waxaana ay ku eedeeyeen inuu xisbiga kala qaybinayo oo khilaaf hor leh ka sii dhex abuurayo waxaana socdaalka uu shalay ugu ambabaxay gobolada bariga Soomaaliland ay ku tilmaameen inuu yahay mid uu ku sii kala fogeynayo xubnaha iyo saraakiisha gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga udub waxaana ay tilmaameen inuu Axmed Yuusuf Yaasiin uu go'aansaday in xisbiga udub khilaafkii hore uga sii dhex jiray uu sii libilaabo shirkaasi jaraa'id oo ay ka hadleen wasiirka hore wasaaradda warfaafinta Axmed Xaaji Daahir iyo wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda gaashaandhigga Axmed Maxamed Filanwa xildhibaan Baar Siciid iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga udub dhamaantood ay sheegeen in xisbiga udub uu sii kala fogeynayo Axmed Yuusuf Yaasiin ugu horreynkaas waxa ka hadlay Cabdi Xaliin waxana uu sheegay in talaabada uu qaaday Axmed Yuusuf Yaasiin ay tahay mid uu ku sii kala fogeynayo xisbiga udub dhabar jabna ku ah xisbiga udub waxana uu tilmaamay in Axmed Yuusuf Yaasiin suu kar waayay imaanshaha madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale kan oo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka udub oo ay sheegeen in laba maalmood dabadeed uu imanayo dhaga kale isdaalkaas waxa ka hadlay Axmed Maxamed Filanwa iyo wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta Axmed Xaaji Daahir iyo mas'uuliyiin kale dhamaantoodna waxa ay tilmaameen sida wax xun yihiin khilaafka xisbiga udub ka dhex jira iyaga oo Axmed Yuusuf Yaasiin ku eedeeyay inuu khilaafkaasi mas'uul ka yahay wasiirka hore wasaaradda hawlaha guud ee guriyanta mudane Siciid Sulub iyo mas'uuliyiin kale iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhamaantoodna Axmed Yuusuf Yaasiin ku eedeeyay inuu xisbiga uu dhabarjab weyn u geystay waxay tilmaameen inuu sukar waayay imaanshaha madaxweynihii hore Soomaaliland Daahir Riyaale kan oo dhawaan imanaya shirkan jaraa'id ee sida wada jirka u qabteen ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii shalay madaxweyne ku-xigeenkii hore Soomaaliland kusimaha gudoomiyaha xisbiga udub uu sheegay inuu gobolada bariga ugu kicitimayo sidii u dardargelin lahaa hawlaha xisbiga udub ee goboladii degmooyinka Soomaaliland ururka haweenka qaranka NOW ayaa maanta baaq nabadeed u diray dadka ka soo jeeda deegaanada Buuhoodle isla markaana waxa ay taageero u fidiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland safarka uu ugu bixi doono shirka ka dhacaya magaalada London faahfaahinta warka waxay nooga soo diray magaalada Burco wariye Maxamed British ururka haweenka qaranka Soomaaliland ee Norway gobolka Togdheer ayaa shir jaraa'id ay maanta si wada jir ah ugu qabteen gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay ku taageereen go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ka qaadatay inay ka qayb gasho shirka 23 bishan ka furmaya magaalada London ee cariga Ingiriiska qarandan go'aankii uu qaatayna shirka la isugu yimid laguma bedeli karo cid kastaba ay isu timaado dawladaha adduunka oo dhan haddii isu yimaado ma bedeli karo go'aanka aynu qaran ku qaadanay la yidhaahdo Soomaaliland kaanina waxa weeye wixii dan u ah ummadda Soomaaliland iyo halkii la tagay ummadda Soomaaliland dan u ah ama nabadooda inagu taageeraynin in aanay dan ku jirin xagal laaban xoolo kuma yimaadaan baa la yiri waxa loo baahan yahay Soomaaliland meel kasta oo ay wax kaga xidhan yihiin in aan cidina inooga warhamin ee aynu inagu ka warkeeno ayaan halkan isugu nimay waxaan ku leenahay mudana madaxweyne meeshii ay dal Soomaaliland ku jirto inay tagto waa muqaddis annaguna waan ku garab taaganahay kan iyo mid lamidaba waan ku garab taagnaanayna kayagu waa arin diyaar garoobay oo fiican wanaagsan cidna aan loo daba fadhiisanaynin maalinkan maanta dhibaato weynana laga soo martay maanta mid aan cidna ka baryayna maaha London in ay maanta ay gaaraan qadiyadii aanu doonaynay ee ictiraafka doonaysutaaga Soomaaliland madaxweynaha iyagana waxaanu leenahay mudane Maxamed Axmed Silayo guul ayaanu ku rajaynaynaa sidoo kale ururka haweenka qaranka Soomaaliland ee Norway gobolka Togdheer ayaa baaq nabadeed u diray haweenweynaha deegaanka Buuhoodle inay ka shaqeeyaan horumarka nabadda iyo weliba xasiloonida iyo jiritaanka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland
waxayna ugu baaqeen haweenweynaha deegaankaasi Buuhoodle inay ka shaqeeyaan sidii nabadgelyo waarta ay uga hirgeli lahayd guud ahaan deegaanka Buuhoodle ay nabadi taalo waxaanu leenahay maanan arag wali haweenka reer Buuhoodle iyagoo colaada taageeraya mooyaane iyagoo nabadda taageeraya sidaa darteed waxaanu idin leenahay walaalayaal nabaddu way macaan tahay annagu waanu jecelahay idinkana waanu idinla jecelahay waxaanu idinka codsanaynaa inaad nabadda nala qaadataan Buuhoodle ma aha ala la duubanayo waa xuduudda ka dhaxaysa adaba Soomaaliland baa wada tihiin oo aynu wada nahay dadkii iyo dalkaynaba wuxuu qabsada shirkani jaraa'id ay maanta sida wada jirka u qabteen ururka haweenweynaha qaranka Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa ahaa mid ay si wada jir ah uga soo qayb galeen ururka haweenka qaranka Soomaaliland ee xaruntiisa magaalada Burco si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay ururka haweenweynaha qaranka Soomaaliland ee gobolka Togdheer ay xukuumadda Soomaaliland ku taageereen inay ka qayb gasho shirka 23 bishan ka furmaya magaalada London ee cariga Ingiriiska oo shirkaasi oo sida la sheegay lagaga arinsanayo arrimaha dalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Television madaxa banaan ee Bulsha TV Burco macadka faafinta islaamka oo deeq quraasiye ku wareejiyay xarunta agoomaha magaalada Hargeysa waa kan mar kale wariye Cabdiraxmaan Isbatoore xarunta faafinta islaamka ayaa maanta deeq quraasiye oo gaadhaysa 200 oo kursi ku wareejisay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa deeqdan quraasida ahayd oo ay hay'adaasi faafinta islaamku ay ugu deeqday xaruntaasi ayaa waxa ka gudoomiyay agaasimaha xarunta samafalka madaxtooyada Soomaaliland Aamina Maxamuud Diriye xafladaasi ay kula kala wareegayaan quraasidaasi waxa ka soo qayb galay barsaabka gobolka Maroodijeex Axmed Cabdilaahi Xamarji iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo xukuumadda Soomaaliland ugu horeyn halkaas waxa ka hadlay barsaabka gobolka Maroodijeex Axmed Cabdilaahi Xamarji waxaana uu sheegay in deeqdan tahay mid ay u baahnayd xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa isagoo ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in cid kasta ay caawiso agoomaha carruurta agoomaha ee ku dhaqan xaruntaasi dhinaca kale waxa iyaduna halkaas ka hadashay sarkaal sare oo u hadlaysa xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa waxaana u mahadnaqday xarunta faafinta islaamka iyadoo sheegtay in ay alaabtan ama quraasidan ay aad ugu baahnaayeen waxa kale oo iyaduna halkaas ka hadashay agaasimaha xarunta samafalka madaxtooyada ee Soomaaliland Aamina Maxamuud Diriye waxaana sheegtay in cid kasta oo caawinaysa xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ay soo dhaweynayaan iyadoo tilmaamtay in carruur gaaraysa 300 oo agooma ay ku dhaqan yihiin kuna nool yihiin xaruntaasi baahiyo badan ay qabaan waxaase ay sheegtay in muddooyinkii u dambeeyay ay wax badan u qabteen iyadoo sheegtay in xarunta faafinta islaamku ay horena dhar ugu deeqeen gudoomiyaha faafinta islaamka Sheekh Maxamed Mooge oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in aanay markii ugu horeysay ay caawiyaan xaruntan aanay ahayn waxaana uu tilmaamay inay markastaba la garab taagan yihiin xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa inay caawiyaan oo ay wixii hayaanba ay keenaan waxaana uu tilmaamay in kuraasidan yihiin qaar qaali ah oo meelo fiican lagu isticmaalo sidaas daraadeedna xaruntan ay keeneen waxa kale oo uu sheegay in horena ay dhar ugu qaybiyeen xaruntan isagoo tilmaamay in miisaasna u keeni doonaan gudoomiyaha xarunta islaamka Sheekh Maxamed Mooge oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxba faahfaahin badan uma baahna sheekha sheegay wixii la keenay iyo wixii la bixiyay وفي العهد إن العهد كان مسؤولا باليش waxaanu oofinaynay ballantii aanu ayaantii hore qaadnay ee aanu nidhi waxaanu keenaynaa kuraasi waxaanu u keennay kuraasida kuwa casuumadaha waaweyn lagu sameeyey hodheelada waaweyn sida Ambassador iyo Mansour kuwa yaala ayaanu agoomaa u keennay waxaa la yidhi siday u dhaxun tahay uma allala maanta waa agoomo barrina madax bay noqon doonaan insha Allah sidaa darteed ayaanu ugu keennay kuwa ugu sharafta badan leh kuna wareejinayna waxaan kaloo idin sheegaynaa ee kuraasidu miisas bay u baahan yihiin markii hore waxaana la yidhi hay'ad baa ballan qaado keenaysay laakiin weli waa loo baahan yahay waxaanu taana ballan qaadaynaa oo socdaalka iyaga dambe uu yahay March 15 un baanu soo noqonaynaa meesha nala ka xukumaanu tagaynaa Nairobi taana aanu u soo weydiinaynaa inaanu u sameeyno miisaska waxay noqonaysaa saxan aan malqacad lahayn wax lagu cuno lahayn hadii aanu kuraasidii keenay miisaskii ay ka maqayeen waxa loogu talagalay miisaskan iyo kuraasidan kuwii ay ku qadeynayeen weeyaan
daawadayaal halkaad weli nagala socotaan waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo hadahan oo kale idinka imaada stuudiyihiisa koobaad ee magaalada Hargeysa. Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya oo safar shaqo dibadda ugu maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo beeniyay hadallo la isla dhexmarayo barihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho oo ahaa in Soomaaliya maxkamad la gelin doono isagoo arrimaha ka hadlayna waxa uu yiri waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta ku soo laabtay caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaan bishii January سألنا كذي إلى كودي إلى كودي فبراير تري دفع تريانية وقرص وقت ما يبران مصر كدول تريانية ماري مونتي يجيك داش عندك أرمى بدها يرمى دبل يكرين كيسة وحنا كلاس هذا اللي حيل خلاص الدم يسيدي هرمك كدول كسوماليا دول بعض النهاية دول تريانية وحيل التاريخ يلا دول الصومالية Ra'iisul Wasaaraha imaantigiisa ayaa waxay ku soo beegmaysaa isagoo safar kala gadisan ku kala bixiyay dalalka Talyaaniga, Kenya iyo Djibouti. Sayyid Cabdiraxmaan Barre, Bulsha TV, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dalka Maldives Maxamed Nasheed ayaa maanta si rasmi ah isku casilay kadib markii mudaharaado muddo 7 socday ay kaga soo horjeedeen shacabka dalkaasi kuwaas oo ka dalbanayay inuu madaxweynuhu iskaga dago jagadaasi. Madaxweynaha dalka Maldives Maxamed Nasheed ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu iska casilay jagada madaxtooyada dalkaasi kadib markii wadankaasi muddooyinkii u dambeeyay ay ka socdeen isku soo baxyo laga dalbanayo inuu kaga dago jagada madaxtooyada taasoo ay qaar kamid ah militariga dalkiisuna qabsadeen idaacada iyo telefishinka wadankaasi kuwaas oo taageerayay sanaa mudaharaadayaasha sidoo kale waxa amar diida sameeyay ciidamada nabadgelyada dalkaasi oo diiday inay kala kaxeeyaan mudaharaadayaasha taasoo keentay inuu madaxweynuhu waayo garab kamid ah ciidamadiisa isla markaana hore ay wadanka u gilgileen isku soo baxyo kuwa lamid ah oo ku soo horjeeday siyaasadda Maldives iyagoo shacabweynaha Maldives ay ku eedeeyeen madaxweyne Maxamed Nasheed iyo xukuumaddiisu inay rakaadisay maamul xumo iyo musuqmaasuq hareeyay dhammaanba wasaaradaha Maldives si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Maxamed Nasheed ayaa qaatay go'aanka iscasilaadda taasoo uu tanaasulay isla markaana ixtiraamay dhawaaqa shacabkiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo sii laabay cunaqabatayntii saarneyd dalka Iran kadib markii uu shaaciyay in bunuugta dalkiisu gabi ahaanba lacagtii u taalay dalka Iran ay xayreen. Tobanaan dhalinyaro reer Iran oo gadoodsan ayaa mudaharaada ka horwaday guriga baarlamaanka Iran kuwaas oo dalbanaya in xukuumadda Iran gabi ahaanba joojiso shidaalka ay u dhoofiso Yurub iyo Mareykanba. Mudaharaadayaasha oo watay boodhadh ay ku boorinayaan xukuumadda inay tallaabo ka qaado cunaqabataymaha maaliyadeed ee ay ku soo rogeen Yurub iyo Mareykanku joojisana shidaalo hore looga iibin jiray. Mudaharaadayaasha ayaa tilmaamay inay xukuumaddu joojiso baatroolka la dhoofiyo wadamada reer galbeedka taasoo bedelkeedana qaadanaysa 6 bilood. dhanka kale guriga cad ee Mareykanka ayaa soo saaray in madaxweyne Xuseen Barack Obama uu ku sii adkeynayo cunaqabataymaha Iran kaasoo ka xayiraya lacagihii bangiyada u yaala Mareykanka xukuumadda Iran iyo dhammaanba lacagaha bangiga dhexe ee Iran u yaala dalkaasi. go'aanka Obama ayaa yimid shalay mar uu shaaciyay in Israa'iil wali go'aansan inay duqeyso warshadaha nukliyeerka Iran. 10 ruux ayaa ku dhintay rasaasta ciidamada nabadgelyada ee dalka Suuriya iyadoo maanta ay qasab ku galeen ciidamada militariga dalka Suuriya magaalada Saabudin. kooxaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa shaaciyay in ay gabi ahaanba dadkii ku noolaa magaaladaasi u qaxeen deegaanada ka dhow. inka badan 100 qof ayaa ku dhintay magaalada Ximis gudaha dalka Suuriya kuwaas oo ku dhintay madaafiicda militariga dalkaasi ee Hoon kadib markii Shiinaha iyo Ruushka codka diidmada qayaxan ee fiitooga ay ku joojiyeen barnaamijka Suuriya lagu joojinayo dilka ay ku hayso dalka rayidka ah. qolyaha u dooda xuquuqda aamaha ee dalka Suuriya ayaa sheegay in magaalada Saabudin gabi ahaanba dadkii ku noolaa ka qaxeen magaaladaasi kadib markii ciidamada dalkaasi xoog ku soo galeen magaaladaasi. danjiraha u fadhiya Mareykanka qaramada midoobay Rice ayaa sheegtay in wax laga xumaado tahay codka qayaxan ee fiitooga ay qaateen Ruushka iyo Shiinuhu taasoo boo ku noqon doonta labada dawladood markay Suuriya bay tidhi dhawaan ku dhalato dawlad dimuqraadiya. dhanka kale dawladda Mareykanka, Ingiriiska iyo Tunisia iyo dawlado kale oo fara badan ayaa kala soo baxaya safiiradoodii u fadhiyay caasimadda Dimashq iyadoo maanta Dimashq kulan la yeelanayso wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov.
xamaas iyo fadxi ayaa soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay 6 sano kuwaasoo maanta ku heshiiyay caasimadda dalka Qatar ee Dooxa waa ka wariye Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin oo faahfaahiyo warkaasi labada garab ee Falastiin ee Xamaas iyo Fadhi ayaa maanta soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay kuwaasoo isku afkartay in Maxamuud Cabbaas ahaado madaxweynaha dawladda Falastiin ee ku sii meel gaarka ah labadan garab oo heshiisintoodu ka dhacday caasimadda Qatar ee Dooxa ayaa isku soo dhaweyntooda ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Falastiin kuwaasoo dhisay xukuumadda loo wada dhan yahay oo qabata doorashooyinka soo socota ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa heshiiskan ku tilmaamay in madaxweyne Maxamuud Cabbaas ka marin habaabay wadadii nabadda mar haddii uu la heshiiyeyba heshiisba la galay Xamaas Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu heshiiskaasi Dooxa uu yahay mid Falastiin ay Xamaas la midoobayso isku xuduudna ay noqonayaan isla markaana ay ka wada tageen wadadii nabadda isagoo madaxweynaha Cabbaas la hadlayana waxa uu yidhi mid waa in la soo kala galaa inuu la heshiiyo Israa'iil iyo inuu la heshiiyo Xamaas dhanka kale midowga dawladaha reer Yurub ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiska nabadeed ee ay ku midoobeen labada garab ee Xamaas iyo Fadhi Mareykanka ayaa isaguna dhankiisa ku tilmaamay heshiiskaasi mid khuseeya arrimaha gudaha dalka Falastiin daawadayaal intaas waxa naga eeg warkii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dibadiisa intaan warkan mid ku kulmi doono anigoo Maxamuud Axmed Cali dhammaan akhyaarta bulshada TV oo idinkaga tagaysa sida ayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh